kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug golaha wasiirada golaha wakiilada galmudug culamaa u diinka sharafta leh howlwadeennada iyo agaasimayaasha hay-adaha dowladda saraakiisha iyo ciidamada amniga dhammaan marti sharafka nagala soo qayb gashay munaasabaddan qaaliga furitaanka masjidka xarunta golaha wakiilada galmudug asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa maantay sharaf noo ah waxaan filayaa muddadii lasoo dhaafay waxaad aad u maqli jirteen xarun wasaaradaa la furay xarun baarlamaanaa la furay xarun madaxtooyaa la furay xarun waxaa la furay hay-ad kale laakiin maantay waxaan furaynaa gurigii alle marka gurigii alle anigu ma dhihine allah yidhi subxaana wa tacaala fii buyuutin adina allahu an turfaca wayudkara fiiha ismuhu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaali rijaalun laa tulhiihim tijaara walaa baycun can dikri illaah waiqaami الsalaa waitaa'i الzakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar liyajziyahum allahu axsana maa kaanuu yacmaluun allah naga dhigo subxaana wa tacaala kuwii camira guryaha alleh kuwii aan ku kadsoomin adduunyada iyo guryaha kale iyo quruxda guryaha alle ay leeyihiin iyo wanaagga ay leeyihiin allah nagu anfaco culimmada ayaa aayadihii munaasabka ku ahayna noo akhriyey naguna wacdiyey sheekh cabdiweli iyo macallinkayna khayr allah siiye waxaan rajaynaynaa inay hadda kadibna risaaladii iyo dacwadii iyo khayrkii ka gutaan ooy nala dul joogaan haddii laga mashquulana ay bogaadiyaan waxaan filayaa xarumaha dowladda oo hadda masjidkan ma aha kaliya baarlamaankee qaybaha kaloo ku dhadhow ha noqoto ciidamo ha noqoto shaqaale ha noqoto wasiiro ha noqoto xildhibaano cadad fara badan ayaa jooga inkastoo ilaahay nagu manadaysta annaga oo tahay nicmadaas inaan alla uga shukrino madaxdayna iyo mas-uuliyaddayna iyo wasiiradaynu dhammaan ay kala qayb galaan dadka salaada iyo cibaadada iyo dhegaysiga diintaba masaajidda caamka oo aan uga fiicannahay meelo badan oo soomaaliya ka jirta oy maanta suurtagal ahayn dadka mas-uuliyiinta ahi inay masaajidda caamka tagaan ama ay ka qayb galaan marka waa nicmo ilaahay nagu madnadaystay oo muddadii halkaan aan hadda ka shaqaynayna ama mas-uuliyiinta ama dad badan oo noo yimaado ay nala yaabeen oo yidhaahdeen wasiirra aan staff wadan oo masaajid tegaayo oo ku dukanayo oo iyo xildhibaana iska lugaynayo oo dadka kala qaybgalayo baararka shaaha lagu cabay iyo masaajidda iyo xarumaha kala qaybgalayo waxaan horu aragna maaha oo qaarkood ay ku leeyihiin 20 sanaan xildhibaan ahay ama 10 sanaan wasiir ahay masaajid iyo jamaacana weligay kuma dukan oo maba gelinba oo dadkina waa iga cabsaayaan anigana waa cabsaha marka meelaan geli kara maaha marka waa nicmo aan haysanno waaye kanna waa noo soo biiray waxaan rajaynaynaa asagana insha allahu inaan ku darsan doono sida uu sheekh cabdiweli noo sheegay masjidku wuxuu ku quruxsan yahay inuu camiran yahay laakiin haddii inta la dhiso kharash badan la geliyo qiimo ma samaynayo intaas kadib waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo intii ka qayb qaadatay wax ku darsatay xoog ku darsatay xoolo ku darsatay tala ku darsatay cilmi iyo aqoon ku darsatay intaba heerar badan oo soo maray ugu horeynta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo dadaal badan iyo talo badan iyo xiriir badan sameeyey agaasime cusmaan macallim oo asagu in badan laga yaabo annagu markaan ku mashquulsannahay qaybaha kale howlaha dowladda aad ugu mashquulsan oo xarumaha dowladda
masjidkaasna hadda ka hor noo camiray oo noo dayactiray oo noo sameeyey enji kadibna kii madaxtooyada bilaabay kadibna kan shaqo badan iyo dadaal badan nala geliyey sidii loo hirgeli lahay sidoo kale waxaan rabaa hay-adda qadar alkhayriya inaan ayadana uga mahad celinno kaalintii ay ku lahaayeen masjidka iyo dadaalkii ay geliyeen markii aan muddo daba joogna inaan helno masjid weyn oo sida cabdiweli u sheegay faakhir ahoo aan idhaahdo masaajidda caasimadda ayuu muxuu ahay la tartamayaa oo reer galmudug iyo hay-adihii wixii u bandhignay markii dambe mid yaroo kooban aan qaadanay laakiin markii dambe ilaahay mahadiis waxaan fursad u helnay in baarlamaankii iyo madaxdii iyo mas-uuliyiintii iyo dad badan oo ganacsatahay ay wax ku darsan karaan markayna yidhaahdeen qoladaanu masjid yaroo waxaan idiin haynaa 8 lagu dhuftay 10 ma qaadanaysaan mise mid weyna iska sugaysaan waa qaadanaynaa nasiya laakiin masjidka hadda 12 lagu dhuftay 12 aan ka bilownay iyo qaybta kale wuxuu ahay weesada iyo musqulaha iyo ay ku jiraan marka inta kale anaga ku darsanayna galmudug waa naqaanaa inaan wixiina soo gaara barakaysanon wax ku badsanee ilaahayna waa barakeeyay markaan bilaabayna kadib futuuxaadkii oo yaa masjid wax ku darsanaa khayr waaye xildhibaano badan iyo mas-uuliyiin badan iyo dad badana wax ku darsaday waa u mahad celinaynaa kaalintii ay ku lahaayeen sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa shirkadda Geedi Construction and Real Estate oo gacanta ugu weyn ayaduna ka geysatay Allah ka abaal mariyay injineer Cadnaan oo hogaaminayay oo naga ballan qaaday inuusan faa'iidana ka raadinayn waxna saaranayn xoogiisana oo gelinayo lacagna waliba oo ku diraayo markii dambe oo la qiimeeyo oo la isku celceliyana qaar badan oo kamid aan uga faataxayno nirwa kaaga duceynaynaa ka soco marka asagana waa ku mahadsan yahay waxaan rajaynaynaa madaxweynuhu inuu nala abaal mariyo kambanigaas oo hadduu ilaahay idmo shahaadada guddoonsiiyo sidoo kale golaha wakiilada waa uga mahad celinaynaa iyo intii ka qayb qaadatay qurxintiisa kaalintana ka qaadatay aaday u mahadsan yihiin waxaan u mahad celinaynaa madaxda iyo mas-uuliyiinta nagala soo qayb gashay oo noo furtay maantay hogaaminayo madaxweyne cali ciid